oo aan ku soo koobnay 20 urur siyaasadeed oo ka qayb gali doona doorashada soo socotay golaha deegaanka khamiista soo socota oo bisha December ay tahay 25keeda waxa ku tartami doona murashaxiin kor u dhaafay 1600 oo murashax waxay u tartami doonaan degmooyinka eega ah oo 27 ah iyo degmooyinka biiga ah oo 21 ah guud ahaan waxay u tartami doonaan 390 kursi oo ka kooban dhammaan golaha deegaanka gobolka Banaadir waxa sharaf noo ah hadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka in waajibkii shacbiga Soomaaliyeed in ugu aamineen xukuumaduna ay baarlamaankuna uu ugu ansixiyay oo ahaa dalka inaan gaarsino doorasho qof iyo cod ah inaan maanta chapterkii ugu dambeeyay aan soo xirnay waxaan naga diyaar dhammaan qalabkii doorashada waxaan naga diyaar dhammaan 5,000 ku dhawaad shaqaale shaqayn doona maalinta codeynta oo aan tababar u sameynay oo aan dhaarinay waxaan diyaarinay in ka badan 510 goobood oo laga codeyn doono khamiista soo socota oo bisha December ay tahay 25keeda waxaan diyaarinay all wixii loo baahnaa oo qalab doorasho oo la xiriiro oo dhan waxaan casuunay dhammaan observerski 100 journalist ka badan ayaa waxaan 2 maalin train u sameynay oo aan barnay shahabka iyo shuruucda looga baahan yahay inay soo tabiyaan maalinkaas weyn ee ummadda Soomaaliyeed insha Allah ta'ala ku soo fool leh waxaan gaarsiinay gobolkan Banaadir inaan dadka ugu badan ee laga diiwaan gelin karo aan diiwaan gelin insha Allah ta'ala shacbiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego ay ku noqon gobolka Banaadir inay isu diyaariyaan maalinta khamiista soo socota bisha December 25keeda inay u soo xaadiraan dhammaan goobahooda degmooyinka qof walba degmada uu joogo inuu ka codeyn doono iska diiwaan geliyo meel walba goob walba oo degmada ka tirsan oo polling stations ama goob codeyn ah magacaaga yaala meeshii kuugu dhow ayaa tagaysaa codka ka dhiiban doontaa waxaan fududeyn doonaa dadkaas inay goobaha gaaraan